TV-giina ما شاء الله horta Soomaali Somaliland in badan waa rajeynayna in yani ay midoobaan walaadin ku taliyo tirada iyaga loo dhiibira waan rajeynaya hadii loo dhiibinayo yimaadaan haddana السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkan waa TV-ga indhaha shacabka oo barnaamij gaar ah maanta ku eegi doono wada hadallada dhexmaraya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland waxaan mikrofoonka kula dhaxaadnay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aan aragtidooda kala duwan ku eegayno waayahay daawadayaal waxaan mikrofoonka markaas ku soo dhaweynayaa mid kamid ah dhalinyarada ee ku sugan magaalada Muqdisho xilligani ku soo dhawo mikrofoonka indhaha shacabka adigoo aragtidaada ka bixinaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo hadallo ugu socdo dalka Djibouti aragtidaada ku waa dhawahay magacaygu waa Arwaax Ali Gadaf doorasho bahalkii wada hadallada ka socda Somaliland iyo Soomaaliya u socda oo ka socda Djibouti waa soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa in wax mira dhala oo Soomaali oo dhan ugu jirto ay ka soo baxdo waxaan rajaynaynaa Soomaali garbaha isqabsato in la midoobo in mataqaanaa wixii hore laga gudbo de Soomaali gabigeeda islaysay qolo gooni loo laayay ma jirto dhibaatadii dawladda kacaanka way gaartay de inay saas u fahmaan rabaa walaalaha Somaliland insha Allah hadii ilaahay waxa Ali Maxamed Faarax waayahay sideed u aragtaa wada hadallada u socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland hadii horta Somaliland wax badan bay tirsanaysaa oo waxyaabo badan loo geeyay dii laga heshiiyay wixii hore anigu waxaan ba goojo aragga meesha joogagaas hadii marka boogo hor la dhayo Soomaalidu badan waxba soo qabta laakiin siyaasiyiintu baa dirsan mooyaan hadda inta jaamacadaha laga dhigtaa ganacsi baan wax walba yimaadeen moogta xogo wax dirsan siyaasiyiinta weyn hadii marka loo arko wax dhibaan way leedahay ma jirto waa aad bay u shiin karaan waan soo dhaweynaynaa inkastoo hadii ay u baahnaa lahayd dad aqli leh ama culimo ama aqoon yahanna laakiin on dan khaas aan wadan marka taas okay way waanu goob joog rag ka Hargeysa joogaan aanu markii dhibka ay tirtirayaan oo dhacay marka hadii laga dhayo dad dhayan la helo aqli leh wax dhibaato oo ka dhacay ma jiraan aad baan u soo dhaweynaa ilaa ninka la yiraahdo lixdankii markii la qaatay ilaa cigaal way lahaayeen moogta ولو مركو واحد من مركو مدحينا تينا ولكن كو تليو ترى يجي لو ديبلا وان رجيني هدي لو ديبنا يمادان هذا نو بسم الله مقعيق وهبون الياس علي آذان ugu faraxsanahay in aan ka soo muuqdo yani TV-giina ma sha Allah horta Somaliland in badan waa rajeynayna in yani ay midoobaan colaad dhaxtaalna yani dhaxdooda ka dhamaato maxaa yeelay Soomaali waa Somaliland iyo Somaliland kala qaadan ma isku diinayaan nahay isku afayaan nahay ma ahanba in la kala qaado aadan ugu faraxsanahay in yani Somaliland ay midoobaan waan rajeynaynaa Somaliland oo ku dhaxmaraya dalka Djibouti aad iyo aad waan soo dhaweynayaa iyadoo laga joogo xilligii Soomaaliya ay xorriyada qaadatay 60kii maanta laga joogo waqti fog oo 61 sano ah runtii waxaan soo dhaweynayaa aad iyo aad wada hadallada ka bilowday Djibouti oo ay galowdeen ka tahay Djibouti oo la soo geenayo Soomaaliya mar kale midnimo waxaan isleeyahay waxa la joogaa xilli kale markii dib loo midoobi lahaa 1960kii Hargeysa calanka soo qaado waxay timid Muqdisho waxaan leeyahay maanta Muqdisho abaalkii baa laga rabaayo inay inta calanka qaado Hargeysa geeso waqtigeedii baa la joogaa baan leeyahay laba lamrin la Hargeysa soo dhawow marka hore TV-ga indhaha shacabka adigoo magacaaga noo bilaabay Cabdicasiis Saqadan waayahay Cabdicasiis waxay nooga aragti bixisaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo wada hadallo ugu socda dalka Djibouti aragtidaada bal ka dhiibo waan soo dhaweynaynaa walaalena Soomaaliyeed gobolada waqooyi gobol soo koonfureed aan arabnaa inay isu midoobaan arday labada dalba waa laba walaala aad gacan furmo ku soo dhaweynaa waa soo dhaweynaysaa waayahay ku soo dhawow TV-ga indhaha shacabka adigoo magacaaga ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi marka hore waxaan digu TV-ga shacabka waxaan ugu mahadcelinayaa waraysiga gaarka ay la yeesheen anigoo magacayga injineer Aadan Maxamed Bilaaway waayahay maxamed sidaad u aragtaa wada hadallada dhexmaraya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo ku dhexmaraya dalka Djibouti waxaan u arkaa waxa la maray jidkii ugu wanaagsanaa ee dawladda federaalka ee maray weygii ugu wanaagsanaa ee walaalaheen ee Somaliland ee loo mari lahaa ee loo dhibaatadu sideeda marka ay dhacdo boogtu waxay u baahan tahay in la dhayo haddana waxaan u arkaa in uu boogti meeshii loo mari lahaa uu maray waayo waxa dadku carab iyo ilko ayaa isu dhow way isqaniinaan hadda
haddana meel bay ku wada nool yihiin waa sidaa soomaalina inay isu timaado ay ka wada hadasho waa masadkooda waa wax meesha ku jira sidii jiilkii annaga naga dambeeyey ama aan dhalnay ama jiilkii ka sii dambeeyey ay u helaan wanaag waxbarasho lacag la'aan caafimaad lacag la'aan wax walbaba iyo horumar dalkeena kusoo dhawow TV-ga indhaha shacabka adigoo magacaaga noogu bilaabaya aad iyo aad ugu dhawahay magacayga waa Cismaan Maxamed Cumar waayahay Cismaan sidaad u aragtaa wadahadallada dhexmaraya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo ku dhexmaraya dalka Djibouti wadahadallada mar dawladda federaalka iyo Somaliland waxaan arkaa inay fiican yihiin astaan fiican ka soo bixisay waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan isfahan iyo midnimo qaran haduu Ilaahay karan noqdo aadan soo dhaweynaa wadahadallada guud ahaan daawadayaal waxaa intaan oga eeg barnaamijkii gaarka ah oo aad kala socoteen TV-ga indhaha shacabka isla markaana aan ku eegaynay wadahadallada u socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo ku dhex